إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد تعالى ولا ليال خطبتنا waxay ku saabsan tahay dhalinyartu hablayeen oo midkay doonayaan noqdaane dowrka marka ay ku leeyihiin dacwada yacni fidinteeda iyo gaadhsiinteeda dowrka marka ay ku leeyihiin shabaabku ama dhalinyartu ay ku leeyihiin runtii waa dowr aad iyo aad markaa qaali u ah saa daraaddeed waxa weeyaan dhalinyarnimadu waa shay qaali weeye waa shay markaa aad iyo aad markaa qaali u ah fa ina shabaaba fi kulli ummati maxaa yeelay shabaabnimadu ama dhalinyarnimadu rag iyo dumar hablayeyn oo midkay doonayaan noqdaan dhalinyarnimadu ummadda dhexdeeda waxa u yihin markaa ama ummadda waxa u yihin markaa waa lafdhabar weeye waa lafdhabarta markaa bulshada weeye fa ina shabaaba fi kulli yacni umma cumaad dhalinyartu waxa weeyaan walaalayaal ummadda dhexdeeda ama bulshada waxa u yihin markaa waa lafdhabar weeye allatii taquumu calayha waa lafdhabarka keliya oo waxa weeyaan ummaddu ay isku taagayso haddii markaa dhalinyartu ay hagaagto oo dhalinyartu ay toosnaato ummaddu waxay noqonaysaa ummad markaa jirta oo hormarta waxa weeyaan dhalinyarnimada ama markaa shabaabnimadu waxa weeye hum rijaalu lmustaqbal baa la idhahdaa waa ragga mustaqbalka weeye hablaha dhalinyarta iyo inamada dhalinyartu waxa weeyaan waa rijaalu mustaqbal weeye waa ragga mustaqbalka markaa hogaamin doona waxyaalo badan baa kasoo dhex bixi doona madax baa kasoo dhex bixi culummo fadwoota oo diinta ilaahay fadwoota subxaanahu watacaala baa kasoo dhex baxaysa shabaab dhalinyarnimada waxaana laga sugayaa maalin khayr fara badan baa laga sugayaa saa daraaddeed waxa weeyaan fahum alcaamiluun bima yajibu calayhi min waajibaati illaahi tabaaraka wa tacaala waxay ku dadaalayaan oy cuskanayaan oy la imanayaan alla tabaaraka wa tacaala waajibaadkiisa iyo waxyaalaha uu faray ay had iyo jeer ay ku dadaalayaan ummadda markaa waxa u yimid uma liummatihim wa bilaadihim qudwa dhalinyartu walaalayaal dowrka ay ku leeyihiin dacwadda ummadda waxay u yihiin iyo waddanka iyo bilaadka dhammaan waxa u yihiin markaa qudwa haddii ay wanaagsanaadaan ummadoo dhan baa wanaagsanaanaysa waa lafdhabartii bulshada weeye walaa yakuunu shaabu kadalik dhalinyarnimada ama qofka dhalinyarnimadii waxa weeyaan khayrka intaa leeg iyo wanaagga intaa leeg ma helaayo ilaa ida tamasakuu bidiinihim wa akhlaaqihim assaliima waxaa laga rabaa dhalinyarnimada qofku intuu ku sugan yahay fursad badan buu haystaaye waxaa la rabaa inuu ku dhego oo markaa haysto qofku diintiisa akhlaaqda wanaagsan inuu ku dadaalo maxaa yeelay sacaadada iyo liibaantu waxay ku jirtaa min kitaabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sala allahu calayh wasalam dhalinyarnimadu ama dhalinyartu inay qabsadaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam salawaatu ullaahi wasalaamu calayh labadaasoo la qabsado waa kitaabka iyo sunnade alladayni lan yadilla man tamasaka bihimaa axadka qabsada
كتابك يا السنة قبصة يكون دلاله لومي مايو بمعنى طريقة ونكسن كل حمايو ولن يشقى ما خساره وما خسارايو إذا مركز صفداس دليرت مركز لغا هلو qofka dhalinyarnimadiisa yacni sifada laga helo iyo tilmaamta oo ah kitaabka iyo sunnada oo lagu dhago kitaabka iyo sunnada oo la qabsado sifadaasi waxay keenaysaa walaalayaal in qofku marka uu helo ilaahay naxariistiisa subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay dembi dhaafkiisa inuu helo walidaalika dhalinyarnimadu waxay ka mid tahay toddobada nin ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala u hadhaynayo maalinka qiyaamaha hadh markaa una jirin hadhka ilaahay alla mooyaane subxaanahu wa tacaala waayo nebigu wuxuu noo tilmaamo uu noo sheegay toddoba nin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ama toddoba ruux oo ilaahay u hadhaynayo maalinka hadh una jirin hadhkiisa mooyaane aladiina yudilluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilluhu toddobada waxaa ka mid a nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi tabaaraka wa tacaala toddobada waxaa ka mid ah nin dhalinyara gabadh dhalinyara oo ku barbaartay ama ku barbaaray cibaadada ilaahay iyo dacwadda fidinteeda ku barbaaray ayaa ka mid a toddobada ilaah uu hadhanaya subxaanahu wa tacaala فإذا نشأ الشاب المسلم القوي المالك مركو كبر بارو إن كدليرتي أما قبل دليرتي مركي كبر بارتو عبادة إلهي هي الدين إلهي سبحانه وتعالى قارسين تيدي الدعوة ده حالة ويهي نين حوق بضن أو قوي الله ومقرنا يوكبت بكبر بارو في ضاعة الله سبحانه وتعالى daacada ilaahay uu ku barbaaro ama ay ku barbaarto waxay ku mudanaysaa naxariista ilaahay ama wuxuu ku mudanayaa naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo wuxuu ku bixinayaa waqtigiisa xoogga badan oo dhalinyarnimada ah wuxuu ku bixinayaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ku bixinaysaa daacada ilaahay wuxuu u dadaalayaa uu socdaa uu xooggiisa iyo dhalinyarnimadiisa uu ku bixinayaa fii mardaati illaahi subxaanahu wa tacaala إلهي سدو رالي قلين لها إلهي تبارك وتعالى سوق الرالي نقول لها أحد كالسيدة يا لدريا النمديسة قبل هالنقطة تامانين هالنقطة فقد استحق من الله خير الجزاء الله حكمه سبحانه وتعالى أبا المرين آذي آذو ونكسن أبا المرين آذي ونكسن حكمه وكان محبوبا وحنقون يا مد محبوبة inaan kaa yare gabadhaa yare ku barbaartay cibaadada ilaahay wuxuu noqonayaa markaa may noqonaysaa mid markaa maxbuub ah oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala laga jecel yahay hadda waxaan leeyahay dhalinyarta fahanii'an lishabaab baan leeyahay waxaan halkan markaa uga tahniyadinayaa walaalayaal dhalinyarnimada hor joogta ama rag iyo dumar hablayeennama midkay dooni ha noqdaane إلهي كبقى يتعلق قلبه بالمساجد أو بالمساجدين أحد كوعوية إن كير مركا شبابك إن تير شبابك يا إلهي كبقى إلهي كبقى يا قلبي سولبه وكحري هاي مساجد إلهي سبحانه وتعالى مساجد إلهي وكحري هاي قلبي سو كحري أما قلبي وكحري هاي مجالس الخير meelaha khayrka lagu hayo meelaha khayrka laga sheegayo وعمل الصالحات سمينا مركا عمل وناكسن واغتنب شبابه كفى إذا يستي أما كفى إذا يستي وقت إذا أما وقت يسا كفى إذا يستي قبل هرمي انتو نقبوا من كهر أما انت نقبوا من كهر وصحته قبل سقمي كفى إذا يستي dhalinyarnimadiisa intuuna xanuunku u imanin ka hor waqinaahu qabla faqrihi ka faa'iidaysta waqtigiisa intuu ilaahay xoolo siiyey intuuna faqiir noqonin ka hor yacni ka faa'iidaystay
ولذلك وفرصته قبل شغله كفائديس وقت جيسة انتو مشغول ونكون مشغول مركا أدوية وحي لمدة كفائديستي وحياته قبل مماته كفائديستي لليرمديسة نولشيسة كفائديستي جيريدا كهر انتين جيريدون إيمان ولا ريال وعول لي المعلومة ومن العلم أن الشاب ضيف لا يعود ولا لي الوحد قاتان دالير نمض وحويا ومرتي دالير نمض ومرتي ومن العلم أن الشباب وحل أجهي شباب نمض دالير نمض إني تهي ضيف ومرتي لا يعود ومرتي أنكو قصو نقونين من هذي أي كل أفتو ومرتي مركا هدي أي كسو مرتو أي كل أفتو أن ولغا كوسو نقونين وفرصة قالية وقف وحوي هدي أي صومرت مرتي دا سديب دم وقصو نقون ميس ولا لي الوحى للدنيا مركا دالير نمضة إلا قفا إذا يستال الدنيا وقف كمسلم كي وحوي وإسكا إلالي الشيطان يوحي اللمضة تا عكسي كده ولا ريال أحد كمركا دالير نمضي سكفا إذا يسوايا الدين إلهي الدعوة إلهي كفا إذا يسوايا قاده الشيطان وعهو قامنيا شيطان باهو قامنيا شيطان باهو قامنيا وقانك وقمنيا مركا ساوحو كوهو قامنيا إلى الذنوب والمعاصي ذنوبتي المعاصي حقه ذا يكوه قامنيا داليرنمدي سيكو عيار يا شيطان وقفك قرن وايا داليرنمدو فائدة إلى ضحي هذا وقفك مركا الشيطان والراعو ووقت جيسي داليرنمدي سو بابيو ندم حينئذ لا ينفع الندم ومرقون يا وقت أيضا لا ينفع الندم وحويان وحبو الترميس ومرقو iyo walwal marka dambe uu yiraahdo la dhallinyarnimadaadi maad ka faa'iideysato mid wax u qabanayso wax u tarisa maaha qofka waxa lagu yaqaanaa muslimka inanta gagmaarta shabaabka waxa lagu yaqaanaa dhalinyarta wa in ajasa anhu da'a ilayhi hadii uu kari waayo khayrka iyo wixii wanaaga inuu umada ugu yeero waraqaba ilayhi umada uu jeclaysiyo wa athna ala fa'ili kaliya wuxuu qabanayaa عدة مركا دعوة كفدينيسا ee waqtigeeda ku bixinaysa inuu ku garabsiyo uu ku amaano hadii marka yaacna uu ka jeesto oo waxyaalo ay ka hor yimaadeen caqabad iyo wixii la midane waxa weeyaan oo shaydaan wax u qurxiyane lam yamna'hu minha illa diinuhu wa khawfuhu Allah wax ka mancinaya ma jiro macaasida iyo dunuubta illa waxa ka mancinaya diinta oo haysto iyo cabsida ilaahay uu ka baqay subhanahu wa ta'ala oo ka mancinaysa iyo wa min taa'ati Allah tabaaraka wa ta'ala waxa kaloo ka mancinaya walaal daacada ilaahay subhanahu wa ta'ala daacada ilaahay oo ku dadaala markaa walaal taariikhda islaamka waxaynu wada garanaynaa waqti uma hayne in marka waxa weeyaan diinta islaamka halka waxa soo gaarsiiyay waa dhalinyar walaalayaal dowrkoodii marka ay ka qaateen dhalinyarnimo oo diinta ay ku bixiyeen iyo dacwada ay ku bixiyeen taariikhda uga marxaati kacday taariikhda islaamka ayaa uga marxaati kacday sadaradeed waxaad wada garanaysaan Ali bin Abi Talib waad garanaysaan in yar oo naqab ahaa markii rasuulku rumeeyay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka iskarab taagay in yar oo naqab ahaa walidaalika dacwada ayuu fidiyay mashriq iyo maghrib buu gaarsiiyay sababtu ku gaarsiiyana waxa waa dhalinyarnimada uu haystay iyo xoogga uu haystay wakadalika waxa kamida Usama ibn Zayd radiyallahu anhu waxa kamida Khalid ibn Walid waxa kamida Abdullah ibn Umar waxa kamida Abdullah ibn Abbas waxa kamida Muhammad ibn Qasim radiyallahu anhum wa ardaahum dhamaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala karraali noqdeen waxay ahaayeen dhalinyar walaalayaal laga soo bilaabo Ali ibn Abi Talib أسامة بن زيد خالد بن وليد عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس محمد بن قاسم رضي الله عنه وأرضاهم دمان وحا نمن يرير نقنقا
ولذلك عندنا الدعوة وحي كقاتين دعوة مارت الدورة هذه وين أي كقاتين إلا مركا يعني مارت الرسول عليه الصلاة والسلام كأماني والله قرن النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب مركي أودري النبي والدعوة أودري إن يرى نقبوها مركز الرسول قول علي يوم إنه إلهي سبحانه وتعالى صلبت هذا هل نين إلهي وكهنونيو هل قف إلهي وكهنونيو أيا كاغا خير بدن بورجيل كيس عسعس وعلي بن أبي طالب وين يرى النقن والشباب والدليرة أيو نبي قدردار كاسيريا صلوات الله والسلام عليه إذا ولا ريال وحلو بهاي مانتا دلير نمضان هيسان إن أتكفى ستان كجفى ستان إن أبقبستان كتابك إلهي السنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ريال وقت يقول قابنا ما يقول يروجد وعن كسو كوبي دونا إن شاء الله دور نضقو مركا أما دور قضب مركا ككالمين إنسا دلير نمضان مركا الدعوة دينا يفيديان وحاكم إذا قضب كاس إخلاص الدين لله تبارك وتعالى إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وقضب ككوبات مركا كالمين أياه هذا دلير تهي هذا تهي قبر قضب ككوبات يكون كالمين الدعوة إلى إن تقول بيسو وحويان الإخلاص الدين لله إن الإلهي دين تيله خالص يشو إلهي درتي عضو وضو وحده لا شريك له بمعنى الدعوة هذا هالنقطة من إلهي درتيه لبعض وحكا كالمين يا وكو كالمين يا العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا قرآنك إن تكد داشو هذا ودا دوني سينا الدعوة قبيسو دعوة محاكو كالمين يا إن هذا وحويان دستور أتكردقاتو كتابك القرآن الكريم كا أخرنتي سينا أباديسو حفظي سينا أباديسو حفظي سينا أباديسو رسولكم عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح وحو كليهي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعايدين كل خير بدن أحد القرآن كبرته ومضى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام والنقطة الله بعض ولا ليها نقطة صدح واحد تايكو كالمينيسا أيها الشباب دعوة في دين تيدا العناية بسنة المطهرة أي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تكد داشو سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا طهرا إيه وناكسن إن تكد داشو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إن أضبرته ولا أقولوا يالته تاسنا وحكا كالمين يساد دعوة إله سبحانه وتعالى قضب كافراد وحوين المحافظة على الصلوات الخمس إن إلى لسان شنت وقتي شضال الصلاة والبا في أوقاتها مع الجماعة إن كان رجلا صلاة وحوين شنت وقتي واضح حفظه وحيقو كالمين يساد دعوة يكو كالمين يساد دعوة إله سبحانه وتعالى إن تقول بيسو وتقارسيسو صلاة والبحالة وقت كذا تكتو هذا ننتهي إن تكتو كت جماعة يا مساجد إله سبحانه وتعالى تكتو كتو قضب كشان اللي حادوح يا ولا ريال قضب كشان الدوح يا مركع إنه قفكو كد ذاله إلهي تبارك وتعالى سدو مركع يعني وأقبل لها الدعاء إن وحي مركع وناكسنة حلالة إنه مركع كد ذاله إن تكد ذاشس فيما ينفعك وحي مركا كد ذلك كمارتك وانفعي إن تكد ذاش وحكم إذا تلاوة القرآن قرآن كأخر سكيسة إن الوقت والصميصو ما دام ذوقات الداعي إلهي ضدك ومدوية ريا هذا دونس الدعوة إن يكون فضات القرآن آخر سكبضي مركا قرآن آخر سكبضي لمبر كل حد وحويان اختيار أصحاب المجالس الصالحين بدونس الدعوة هذا يسيس عطو كد ذالين الله صاحبته قبل وانا اكسروا الهي قرنيسا كد ذالين الله صاحبته ان الهي قرنيا وحكا كالمنيا الدعوه في دينتي ذا قضبك ورا لي اللي حد وحوي العمل بشرائع الاسلام ان تكون عمل فشان قف البو كو عمل فله شرائع الاسلام سبحانه وتعالى تاسنا وحكا كالمنيسا دعوه الهي في دينتي ذا هي غارسينتي ذا هي دليرنimada markaad kaga faa'iideysato iyo waqtigaaga aad kaga faa'iideysato ilaahay wuxuu jecel yahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku soo xiriyaa walaalayaal xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigana salawaatullaahi wasalaam calayhi wuxuu yiri maalinka qiyaamaha adoonka ama ina nabi aadam dhaqaaqi maayo lugiisu halka ka dhaqaaqi maayaan ilaa afar la weydiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam
أفرتا وحا كميدا ولا ليال وعن شبابك أو عن شبابه فيما أبلاه وعن شبابه وعلى ويدين دونا دلير نمدي سال ويدين يا وحو كل مي مركا دلير نمد وحي كميتاي وحيالا مالك قيامها ليسكل حساب تمايو أي كميتاي رسولك نو شيخ عليه الصلاة والسلام قفل بدلير نمدي سي حوق إلى وسي هي فرصة دي يرانتي وسي وحو كل ما يسي إلهي تبارك وتعالى ويدين يا يوم القيامة وحكميدا عمرك قال لك ويدين واحد كل ما يسي ورسول قل عليه الصلاة والسلام أدونك واحد لو ويدين دونا مالكي سالكو كسوق شقيسي هالكو كبحيي أي لو ويدين دونا برسولك عليه الصلاة والسلام ولا ليال وحصل واحد وجباهي مركا جوابين إنه ديار سنمانت ولا ليال الدنيا ولا وذا تجياه الدنيا لو ما ورايو نوال مالين بمركا لقى سبوتين ولا قاضياه وحنا لو وذا ساري دونا ننكسته أو نفله إلهي سوق قرآن كم نقول شيء كل نفس ذائقة الموت ما له والمن نفبا لقاضي يا ولا ليال إن نكون عبرة قاضنا نبي يقول عليه الصلاة والسلام وحم موعدي وعدي نوقفنا الموت موت كاين نوقفنا ولا ليال ولا يرنمض والشيء قال يوي هل قف فايديستو إلهي الله يقبقه وقت كان هلا دوره إلهينا سبحانه وتعالى خير كاين وافجيو الله ينودم بالله سبحانه وتعالى وعن كرجيني يا يرنمض إلهي نوناجيو دليرت الله إنه وناجيو الله إنه إصلاحيو الله إنه إصلاحيو كوي لغو فرح الله إنه غيره كوي دونت دين تو ذاك شقي الله إنه غيره إن إله سبحانه وتعالى دنبينا نهدافو دنبي والدكين نهدافو dad badan baa xanuunsanaya Allah caafiyo dad badan baa muraad loo khayr la Allah u fududeeyo in badan oo marka bila awlaadan ka cabanaysan Allah siiyo awlaad khayr qabta Allah siiyo awlaad khayr qabta Allah siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa nabadgelyo inuu na siiyo walaalaheen waxa weeyaan wad arkaysaan dhibaatada jirta colaadda jirta Allah ka dulqaado Allah isjeclaysiyo muslimiinta meel kasta ay joogaan muslimiinta waxa la nayaa Soomaalidu meel kasta ay joogaan Allah isjeclaysiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda hamidayo إلهي عداوتنا كدحصارو هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد جزاكم الله خير الجزاء إلهي مساك